السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا مقالكن waxaan rabaa inaan ku wareysto qareen kamid ah qareenada Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu leeyahay shirkad dhinaca u dooda dadka soo galootiga iyo waliba dadka wadanka sharciga ku yimid oo iyagu ciidamada ICE mudooyinkii dambe ay qabqabanayeen. Cabdiqani Jabane Low ayaa la yiraahdaa kambanigiisa isaguna waa Cabdiqani Jabane howlgallada ciidamada ICE ay ka wadeen magaalooyinka St. Paul iyo waliba Minneapolis waxa ay ku qabqabanayeen dadka sida sharciga qaxooti ahaan wadanka ku yimid oo xitaa intay ka wadaan gobolka Minnesota ay gobollo kala geynayeen sida gobolka Texas oo kale. Haddaba waxaan rabaa inaan arrimahaasi wax ka weydiiyo mudane Cabdiqani Jabane soo dhawow, sidee howlgalladan ciidamada ICE ay ka sameynayeen ku dhawaad 2 bilood ee la soo dhaafay ay u saameeyeen shaqooyinkeena? السلام عليكم. علم وارق وان كسلامي ولا wax badan oo isbedel ay ku sameeyeen shaqadeena howlgalladii ugu dambeeyay hadda waxay sii xoogeysteen hadda 2 bilood oo ugu dambeysay ka hor xitaa inta aysan bilaaban howlgalka ICE ee ugu magacdareen Metro Search qabashada si tartiib ay u sii bilaabeen kadibna waxa ay ku dareen oo kaleetood operationkii kale ee lagu bartilmaameedsanayay dadyooga qaxootiga ah ay ugu magacdareen Operation Paris. Marka laba u kala qaadi karnaa waagii hore badanaa ma dhici jirin, waa markii ugu horreysay aanu aragno in ICE aysan kala soocaynin dadkii kow qaxootinimada halkan ku yimid oo lasoo baaray oo annaga u naqaano yani 209 qaxooti ah yani qaxooti lasoo baaray sharci ku yimid qaarkood xitaa u xareysan yihiin green cardkii qaarna ayba weli aysan xareysanin. Marka taa waa mid iyo midda kaleetood oo sidoo kale ay qabanayeen dadyoogu sidoo kaleetood wadanka of course sharci darrada kusoo galay laakiin hadda si sharciga ku jooga oo u xareysan tahay asylumka. Marka howlgal wuxuu ahaa aad u dhib badan marka kadibna ay nagu qasabtay tilaabooyin kala duwan oo sharciga in aanu qaadno. maxaa ka mid ah marka qofka kaba soo qaad wadanka qaab qaxooti ahaan ayuu ku yimid, green cardkii ayaa u xareysan maba uusan gaarinba in green cardkii uu xareysto, waa la qabtay. markaasi kadib maxaa tilaabo ah oo qareenada kambanigiina uu qaadaya si qofkaasi loo soo daayo maadaama dawladdu ay keentay wadankana qaab sharciga uu ku joogo wax dambiyana uusan gelin muddadii uu wadanka joogay? cilmi oo hadda tusaale ahaan jimcihii hadda lasoo dhaafay waxaa la ii soo daayey yar ka mid ahaa dadyoogii Operation Paris lagu bilaabay oo la qabtay oo ka mid ahaa dadkii qaxootiga ahaa halkan ku yimid si sharciga ku yimid. marka tusaale ahaan waxa ay bartilmaameedsanayeen oo ay ka dhiganayeen marmarsiiyo in dadka qaxootiga ah I-94 la siiyey oo almost sanadkii xitaa ama ha u dhammaado ama yuusan u dhammaanin oo xitaa qaarkood xaraystay green cardka in ay yidhaahdaan nope, dadkan at the end of the 1 year period sanadba hadduu u dhammaado this is exactly the language ay kasoo qaateen INS section oo la yidhaahdo 209 ma garsoo ma garan marka oo yidhaahdaan qaxootigaasi oo weli toola aan helinin u xaraysnaada ma ahan oo aan weli helinin green cardkii marka waan fasiraya ingiriis baan ku waxay yani shall after 1 year shall be returned waa garsoo ma to the custody of DHS for inspection and examination. marka taa ayay marka waxay u qaateen for the custody in lagu celiyo return to the custody of DHS for inspection and examination. marka taabay waxay u adeegsadeen marka awood ah Operation Paris justification ay ku xirxiraan dadkii. waa gartay ma garan marka which weliba brief there oo aan ka qoray ka been sheegaysa exactly Congress-ku suu ugu talagalay sharcigaas oo aan ahayn yes they can inspect way baari karaan dadkii su'aalay weydiin karaan waa garsoo ma garan interview ay ka qaadi karaan interview bay ka qaadi karaan examinations ay ka qaadi karaan oo tusaalaha faray ka qaadi karaan waa garsoo ma garan
marka waa loo ogol yahay waxaasoo dhan laakiin midaan oo ah mandatory detentionka oo ahaba sanadba hadduu u dhammaado inay ku tuurayaan dadka xabsi maaragtay marka waxyaabihii aanu aad ugala dirirnay maxkamaduhuna ka diideen marka qaabkan loo dirirnayno wuxuu ahaa waxay ahayd waxa la yidhaahdo habeas inaanu ka xarayno federal court maadaama maxkamadihii kale oo immigration courtiga ahaa aysan awood badan aysan lahayn maxkamada ayna yihiin administrative courts maxkamada aan niraahno oo wasaaradda cadaaladda hoos tago ilaa dowladii ama yab oo madaxweynaha qaybtiisa wasaaradda cadaaladda executive-ka ka tirsan the executive branch of qaybta fulinta madaxweynaha marka tan waxay noqotay inaan aadno maxkamadihii runta ahaayo madaxa bannaanaa waa garasoo magaran oo qaybta kale ka tirsan sharcigaasi habeas corpus muxuu yahay in haddaad dadka u fasirto marka niyo is a Latin word waaye marka habeas corpus is just wax kala ma haddaan af Soomaali tartiib aan ku fasiro mataqaanaa waxa weeyaan is just qofka maxaad ku haysataan ama sheega maxaad qofkan u xirteen sharci ma u haysataan waa kartaa ma garan so waxaanu markaas aanu challenge garaynaan ku hor imaanaynaa sharciyada qofkan ay u haystaan dowladdu ay u xirtay waa kartaa ma garan imise qof oo hadda sidaasay qaab sharciyaha qaxooti ahaan waddanka ku yimid oo la xiray ayaa kambanigiina ama adiguba qaray ahaanta ugu dooday la soo daayay hadda 2 bilood oo la soo dhaafay haddii aad wax figura ka hayso niyo badanaa ma jecli figures inaan bixiyo laakiin hadda dadka ugu badan annaga aanu soo daynay waxay u badnaayeen oo dadkan qaxootiga ah la xiray waxay ahayd wax hadeer mar dhow bilowday oo dhacay qaarna hadda la sii daayay badankooda laakiin dadka ugu badan ee aanu through ama habeas ama bond hearings aan matalo aan sii daayay waxay u badnaayeen dhalinyaradan asylum seekerska ee Soomaalidu u yaqaanaan darbi ka boodka ma garatay waa gartay ayaga nafsad ahaantooda dhalinyaradaasi qofkii isagoo waddankii amaba TPS haysto amaba sidoo kalena asylum uu xareysan yahay in la qabto oo la yiraahdo qofkan markii horeba waxa uu ku xadgudbay sharcigii immigrationka oo waddanka ayuu sharci darro ku soo galay arrintaas ayada nafteedu ma arrin sharciyaha qofkii iyadoo ama asylum uu xareysan yahay ama xitaa uu TPS haysto temporary protected status ka inay ciidamada ay iska qabanayaan oo iska xirayaan niyo hadda operationadan socda cilmiyo saaba ku bilowday ma aragtay wax badankooda sharciyad raacayay ma any small like excuse series dadku way xirayeen waa gar soo tusaalahan waa nagiiba hadda aan ka sheekeynayna dadkii qaxootiga ahaa oo aan la filaynin in la xiro bay xirayeen marka xitaa mararka qaarkood dadka asylum seekerska ah dhalinyarada inkastay badanaa qaar dhuudhuuntay qaar la qabtay way jirtaa qaar badan oo aan sii dayna way jiraan laakiin ilaa iyo hadda ma aanan arkinin qof TPS haysta oo valid ah oo jirta oo la xiray hal mid baa la ii soo wacay wiil isku dayay inuu Canada galo oo wuu galay Canada baa soo celisay marka ma matalaayo laakiin waxaa la ii sheegay Maraykanka intuusan ka bixin ka hor TPS buu haystay laakiin guud ahaan laakiin cid TPS haysata oo operationadan lagu xiray ma arkin hadda arbacadii la soo dhaafay waxaa jiray sidoo kale garsoore federaal oo isaguna amray dadkan sida sharciga waddan ku yimid ee qaxootiga inaan la xiri karin kuwa kale oo Minnesota laga qabto Texas la geeyna within 5 days in lagu soo daayo 5 maalmood gudahood waxa sidoo kale aan arkayna hadda wiilkii yaraa ee 5 jirka ahaa Liam Ramos oo isaguna warbaahinta qabsaday oo ku dhawaad muddo 2 toddobaad isaga iyo aabihii ay Texas ku xirnaayeen oo maanta la soo daayo Minneapolis isaga iyo aabihiiba lagu soo celiyay waxa jirta sidoo kale dadka Texas intay geeyaan oo ay xiraan in Texas ay ku sii dhaxdeynayaan ay leeyihiin adigu qof waddankii ku yimid oo cusub oo waddankii aan kala garanaynin gobolka uu joogo xitaa aan garanaynin in la yiraahdo Texas inta lagu dhaxdaayo la yiraahdo oo adigu gobolkii aan ka soo wadnay aad arrintaasi iyada nafsad ahaanteedu sidee noqonaysaa iyo marka waxay noqonaysaa and this is where ay muhiim u tahay oo special dadka dhageysanaya inay fahmaan muhiimadda ay leedahay qofka haddii la xiro in isla markiiba la isku dayo lawyerada oo immigrationka sameeya cilmiyo saa og tahay badanaa federal practice ma sameeyaan badankooda oo habeasku waa wax ka duwan oo ka adag oo ka waqti badan marka
yes way jirtaa xitaa dadkii hadday sii daayaan xitaa waxaa dhacday cilmiyo dad xitaa maxkamaddu hadday amartay in la sii daayo ay ku sii daayeen iyagoon fiican haysanin qabowga ma garat adeer waxaa jirta actually gabar aan matalayay oo waxaa laga qabtay I'll give you example waxaa laga qabtay halkan check in bay lahayd waa asylum seeker bay ahayd dadka asylum ku xareysan yahay markay qabteen maalintii kaleeto bay isla markiiba way kaxeeyeen Texas bay geeyeen marka familygooda baa isla maalintaasba la celina maxay la kaxaynayaan iyo hayr isla marka waxaan ka gaarsiinay inaanu federal court-ka halkaan habeas aan ka xareyno iyo wax kale oo la yiraahdo trio ama temporary restraining order oo ah inaan la kaxayn karin laakiin wayba kaxeeyeen ma garatay then habeaskii dowladdu way soo jawaabtay waa u jawaabnay marka waxyaabahan ka dalbanaa waxaa ka mid ahaa not only in la sii daayo laakiin xitaa haddii la sii daayo number kow waxaan ka dalban dowladda in la soo celiyo hadday soo celiyaan inaan qabowga lagu sii daynin iyo sidoo kaleeto in fursad loo siiyo inay wici karto reerkeedii marka ehelkeed marka xitaa hadda Facebook oo aniga Cabdiqani Jabar aan leeyahay amarkii maxkamaddu ay soo saartay markaan ku guuleysanay uu ku qoraya meesha ku qoranta not only in la soo celiyo oo la sii daayo laakiin xitaa dowladdu mar labaad inaysan u xiri karin sababtii marka hore loo xiray inaysan qabowga ku sii dayn karin inaysan xitaa aysan ku sii dayn karin Texas dhexdeeda laakiin ay Texas hadday diyaarad kaga soo qaadan ay ku soo celiyaan Minnesota marka sidoo kale aad baan ugu faraxsanahay mid kale ka dhawaajisay oo wiilka yarka ah caalamkii oo dhan qabsaday iyo aabihiis wax kale iyadana laguma soo daynin isaga isla markii lawyer halkan looga helay oo halkan wax uga xareeyay waxay u muuqataa inuusan jirin laakiin waa laga daba tegay oo Texas dhexdeedii baa waxa looga xareeyay habeas marka xaakim federaal ah oo Texas jooga baa isagana amray si degdeg ah dowladdu inay u sii dayso asagii aabihiiba marka waxaas kadibna halkan bay yimaadeen ayagoo hor ah waa tahay Cabdiqani Jabane oo qareennada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ayuu ahaa oo nooga warbixinayay qabqabashadii ciidamada ICE ay ka sameeyeen iyo dad fara badan oo wadanka qaxooti ahaan ku yimid oo la xiray iyo kuwa kale oo dadka dhalinyarada sharci darrada ku soo gashay wadanka oo asylum amaba maangalyo u xariisnaa oo la xiray uu u dooday isla markaana la soo daayay waa kaaga mahad celinaya wareysiga mudan sidoo kale aad iyo aad